waxaan rabnaa oo rajaynaynaa horta marka hore in wax weyn aad ka bedeshaan aad ku soo kordhisaan ku soo biiritaankiina ciidanka maanta aad ku soo biirteen inay wax weyn soo kordhiso sababtoo ah waad ogtihiin qof walbana waa ogyahay sida xabsiyada maanta jira loo maamulo ma aha sidii loo baahnay ma aha qof maxbuus ah oo dambi lagu helay oo loogu talagalay dadka ku dhex jiro laga soo saaro meel lagu karantiilay oo loogu talagalay meeshaasi in lagu dhaqan celiyo asigoo akhlaaq wanaagsan dib loogu celiyo loogu talagalay haddii uu xabsigi markii uu galo oo isgaarsiin haysta ka waran oo taleefan haysto xitaa oo social media uu ku jira ka waran waxa ka sii daray intaasi markii uu xabsigi iyo ciqaabti sharciga u jideeyo oo dhameysto oo banaanka u laabto wax dhaqan celina ma qaadan ileena wuxuu ku laabanaa dembigii marka hore oo ciqaabta ku muto ku laabanaa kii argagixiso ku laabtay kii daraagiska isticmaalka muqaadaraadka ku laabtay kii tuuga ahay burcadnimadii ku laabtay arintaasi saas haday dhacdo waxay ka dhigan tahay shaqadii ciidanka laga rabay asluubta gaar ahaan qaybta ilaalisa xabsiyada inaysan gudan waajibkoodii inaysan gudan waxa u maleynaa maanta in inta halka xabsi ku yaalo taliyaasha xabsiga meesha waa nala joogan taliyaha xabsiga waxa laga rabaa hadii uusan akhlaaqda ciidanka iyo dhaqan celin dadka xabsiyada ku jiro hadii uusan dhaqan celin wanaagsan u sameeynin oo uusan gaarsiinin inay akhlaaqdooda wanaagsanaato ay ku laaban karaan bulshadii uusan gaarsiinin inta muddada ay garsoorka u soo xadeeyo ay xukuman yihiin haddii uusan gaarsiinin taliya ma ahee wuxuu horjoogo ka yahay mucaskar ay fikirka argagixisada lagu kabciyo oo argagixisada lagu adeego oo horjoogo ka yahay ma aha taliyakaas